sutrada salaadu dadkeenu aad uguma baraarugsano oo maba dhigtaan marka haddii la hormaro dembiga ma isagaa leh mise dadka hormaraya salaadu se wax masaafo ama leedahay oo intaas wixii xaggaas ka xiga waa la mari karaa sutrada waa sunno oo waa shayga ruuxu markuu tukanayo uu ishordhigayo ama inuu tiir isku aadiyo ama derbi isku aadiyo ama uu shay ishordhigo nabigana xadiis badan baa ka sugan sallallahu alayhi wasallam oo uu ficil uu sameeyay amarna uu amray oo in sutra la samaysto marka la tukanayo sutrada waxaa laga rabaa hadduu ruuxu imaam yahay ama hadduu keligii tukanayo laakiin hadduu ku xidhan yahay imaam oo maamuum yahay markaas sutra lagama rabo sutrada waxaa la rabaa in loo dhowaado oo ruuxu sutradiisa u dhowaado markuu sujuudsan yahay meel uun ruux mari karo isagii sutradiisa inay u dhaxayso lowyaha meeshuu dhigayo iyo sutradiisana masaafo intaa ka badan baa u dhaxaynaysa sutrada hadduu imaamku samaysto ama ruuxa keligii tukanaya uu samaysto isagii sutradiisa lama kala dhex mari karo oo nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam ruuxu inuu 40 taagnaado ayaa uga khayr badan inuu ruux tukanayo hormaro waxaa kaloo nabigu amray sallallahu alayhi wasallam ruuxa sutrada samaystay haddii la hormarayo inuu iska celiyo dadka hormaraya isagii sutradiisa dhexdooda dadka maraya inuu iska celiyo hadda xadiista qaar waxaa ku soo arooray nabigu yidhi sallallahu alayhi wasallam hadduu diido ruuxu inuu ka istaago hala dagaalamo فإنه شيطان بو النبي صلى الله عليه وسلم روحه سوى شيطان marka sunnadu sidaas weeye hadduu ruuxu sutra lahayn oo salaada tukanayo isagoo sutra lahayn inaad hormarto waa khalad laakiin hadduu sutra lahayn dadka iskama celin karo laakiin in la hormaro waa khalad ilaa intee baan la hormaraynin ilaa inta sujuudiisa uu ku sujuudayo wax yar inta ka horeysa ayaa loo daynaya wixii kale waa la mari karaa wallahu a'lam barakallahu fiikum wa asaabakum saa'ilkan wuxuu leeyahay sheekhana marar badan waxaa dhacda in hay'adaha bixiya qamandiga iyo buskut dhiijiska sida loogu talagalay looma bixiyo oo dhaxda looga baxaa haddaba aniga oo ka ganacsanaya buskutkaas ma ka iibsan karaa amaba ma ka sii iibsan karaa dukaamada si aan u cuno wixii hanti ee loogu talagalay dadweynaha un baa la siin karaa haddii ciddii la siiyey ay suuqa geysato gadato way heli kartaa laakiin ciddii loo dhiibay oo qaybi la yidhi hadday musuqmaasuq geliso oo xoolihii dadweynaha ay wax ka reebato ama wax ka gadato waa xaaraan wixii ka soo galayna waa xaaraan lagamana gadan karo oo cidda ka gadatay iyaduna xaaraan bay ka gadatay haddaad og tahay marka raashinkan iyo hantidani in qaab khalad looga qaatay dadweynihii iska lahaa mana qaadan kartid mana iibsan kartid kamana ganacsan kartid cidda soo qaadatayna xaaraan bay ku tahay cidda og inay xoolahani si khalad ku soo galeen inay la mucaamalato ay ka iibsato ama ay ka qaadatana iyaduna waa xaaraan laana allah tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay ولا تعاونوا على الإثم والعدوان روح حد قدب إياه دبي سميني هو كالميننا ألنا شيء هدو حرمه لعقتي سروا حرامية سيد النبي قال لك صلى الله عليه وسلم والله أعلم شيخنا سائلكم حوليه وحان لحنون سنة يحنون كبابا سيركا مددر مركان سحرون يوي دبتا مركا فرطا انتان قليو أيان اسكسو سارا حدان صومنا هايسون كي ميغا شبيا waxaan la xanuunsanahay xanuunka baabasiirka muddo dheer marka saxaradu way idhibtaa marka farta intaan geliyo ayaan iska soo saaraa haddaan soomanahay soonku ma iga jabaya maya soonku kuma jabo soonku waxyaalaha jabiyay waa waxyaalo kooban waay oo shariicadu sheegtay wixii inta ka baxsan soonka ma jabiyo arinta hadda la sheegay wax soonka jabinaya ma aha wallahu a'lam
سائل كان يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخ محمد عبد أمل أحبك في الله. شيخ نبي وحيري كبرده حرر عصا مرض هذا لكن وطن كان أي نجوغنو وحاكون الأي ضدكنا بنانا ذي كوكاجان دولكنا واقيان انت بدن سي صورة قال أنه قنيسا إنان مرض سيداي. رسولك صلى الله عليه وسلم وصح مركو واحد رقا كويري ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار حديث صحيح البخاري وحي مرأة أنقوك كهوسية والنار بالنبي صلى الله عليه وسلم رقو كهلي مركز وحي لدين تمرك رسولك إله أنه سيدان سمينا هوس وديك بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني تاك قدر كيده هوس وديك وحي لدين لغها نقا موقني وحي تاك محوها هدنا تاك هوس وسيديك وحي لدين مردي دولك يقاري سايو يعني وسخ بي قاضي سايو محوها أي مريسا النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركي وسخ مرته ميل كلو نظيفة صومسي مريس ها بيتها تاسع ظاهرين يسبب النبي صلى الله عليه وسلم مركي جوابت النبي قال بحية صلى الله عليه وسلم والله أعلم. شيخنا سائل كان يقول لها الشيخ قبر هداي كقبيسته جنابه كدبنا أي أركتو بيا كصباحية ما يقبيسني سامر لبعض ما حدا كرتا markii ay ninka iyo reerkiisu kulmaan in biyihii ama dhacaankii wax kamida wali ku laaban yahay yani kadib haday qabaysato oo dhacaan ama biyo ay soo baxaan qabayskii ku noqon mayso laana qabaysku wuxuu ka waajibay galmada labaadna gabadhu mayna sameeyeen dhacaanka ka soo baxay kaliya wuxuu waajibinaya weysadii buu jabinaya marka weysada bay dib u weysaysan laakiin qabayskeedii kuma noqonayso maxaa yeelay qabayska galma waajibisa galma labaadna mayna sameeyeen wallahu a'lam. سائلكي wuxuu leeyahay sheekh waxaan ahay arday barta shariicada islaamka oon lahayn cilmi badan samaystay arday aan baro wixii aan bartay miyaan ku dambaabi warta shariicada islaamka wixii aad garanayso dadka bar laakiin wixii aadan garanaynin ay isku qasbin wixii aad sax u garanayso haba yaraadee dadka bar haddaadan garanaynin oo hubin oona kuu saxnaynna dadka ha lu goyn nabigeenu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam balliquu cannii walow aaya dadka iga gaadhsiiya hal aayadna ha noqotee halka aayadee ruuxu dadka u gaadhsiinayo waa inuu garanayo haddaad qur-aanka dadka barayso ood macallin tahay waa inaad qur-aanka aad barayso aad saxayso oo qur-aan saxa dadka barayso haddaad culumta shariicada akhrinayso tafsiirka akhrinayso waa inaad tafsiirka saxayso kolba inta aad garanayso gaadhsii waxaadan garanaynin ha isku qasbin maxaa yeelay allah baa diiday tabaaraka wa tacaala walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun ina alsamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula waxaadan aqoontiisa lahayn ha isku kallifin maxaa yeelay aragga iyo maqalka iyo qalbigaba waa la isweydiin doonaa maalinta qiyaamada dunuubta ilaahay laga galo kuwa u waaweynna waxaa ka mid ah wa an taquluu cala allahi maa laa taclamuun waxaydaan cilmigeeda lahayn in ilaahay korkiisa ku sheegtaan ood ku been abuurataan oo tidhaahdo shariicada qabta ama diinta qabto aad bay khatar u tahay marka man calima falyucallim waman laa yaclam falyatacalam ruuxii garanaya ha baro kaan garanayninna ha barto wallahu aclam. سائلكني وحوله شيخ وحان هيستا دكان لعغها ايان صرفا mararka qaar dadka intaan ka qabto dollar ayaan dhahaa kaashka u soo laabo ama waan ku raadin riba miya ku dhacay sheekh waxyar afkeer fogeysa qamba ku jirto sheekh waxaan haystaa dukaan lacagaha ayaan sarifaa mararka qaar dadka intaan ka qabto dollar ayaan dhahaa kaashka u soo laabo ama waan ku raadin riba miyaan ku dhacay sheekh lacagaha sarifka ah
shuruud bay leeyihiin. meelaha u badan oo ribadu gasho waa sarifka iyo ganacsiga dahabka. lacagaha marka la isku iibinayo laba mid ay marka la isku sarifayo inay laba dawladood soo kala saareen oo inay isku jinsi ahayn, iyo lacagta la isku sarifayo inay hal dawlad soo saartay. midda hore hadday tahay oo laba dawladood soo kala saareen la iskuna sarifayo, waxaa laga maarmaana in meesha inta la wada taagan yahay oo la kala dhaqaaqin in la kala qaato haa'an wa haa'an hoo oo isii. haddii iyadoo wax isugu kilaaban yihiin aad kala dhaqaaqdaan ribaad ku dhacdeen, markaa la yidhaahdo riba nasii'a. hadday lacagta hal dawladii soo wada saartay shardi ziyaada kaa hore mooye shardi kaloo ziyaadaa dheer oo ah lacagtu inay isla eg tahay. 100 bir iyo 100 bir, 1,000 bir 1,000 bir, 50 bir 50 bir. haddii la isku sarrifo 50 bir iyo 50 iyo kowgaasaa riba ah. marka lacagta hal dawlad hadday soo wada saartay waa inay isla eg tahay, isla markaana intaan la kala tegin la kala qaato. hadday laba dawladood soo kala saareen way kala badnaan kartaa inay isla ekaato, shardi maaha, laakiin waxaa shardi ah intaan la kala dhaqaaqin in la isku wareejiyo la kala qaato. haddii ay wax dib dhacaan markaasi waa ribo. wallahu aclam. saa'ilkani wuxuu leeyahay xadiiskii ahaa ducadaada oo dhan waxaan ka dhigay salligaaga, rasuulku allena uu yidhi haddaba dembigaaga waa la dhaafayaa, hamigaagana waa la gudayaa. ma waxaa loo jeedaa wardiga mise waxaa loo jeedaa qofku markuu ducaysanayo? xadiiskii ahaa ducada oo dhan waxaan ka dhigay salligaaga, rasuulkii allana ku yidhi haddaba dembigaaga waa la dhaafayaa, hamigaagana waa la gudayaa. ma waxaa loo jeedaa wardiga mise waxaa loo jeedaa qof markuu ducaysanayo? ma fahmin wali. nabiga calayhi salaatu wasalaam yani salliga haddaan badiyo salaadeeda dhan aan ka dhigo salaad maxaa laga wadaa wardiga mise ducada caadiga? xadiidku wuxuu ku soo arooray waa salliga nabiga sal alla alay wasalam. xadiidku wuxuu ku soo arooray waa salliga. macnaheeduna ma aha cibaadadaada iyo ducadaada iyo adkaartooda dhan kulli salli ka wada dhig, ee wuxuu tilmaamayaa uun salliga ku badi adkaartaada. nabiga salligiisa sal alla alay wasalam buu tilmaamaya, leanna waxaa laga qaadanayaa nabigeenna sal alla alay wasalam dhaqankiisii, aqwaashiisii iyo afcaashiisaa laga qaadanaya. kulli salligiisa kama wada dhigin, saxaabaduna salliga nabiga dikriga kamayna wada dhigin. adkaar fara badan oo kalena waa soo aroortay, laakiin macnaha xadiisku xambaarsan yahay waxa weeye dikrigaaga u badi salliga nabiga sala allahu alayh waalihi wasalam. nacam. saa'ilkani wuxuu leeyahay zakadii aan bixin lahaa sanadkii haddii nin maskiin ah ma ku biili karaa anigoo siinaya bil kaste qoonda yar? nin maskiina ma siin kara yani zakadii tartiib ma u siin karaa miya? ruuxa hadday zakada xoolihiisu ka go'do, sakada xoolihiisa ka go'day ma sii haysan karo, masaakiintana uma hayn karo. waa inuu isdhaafiyo. masaakiinta markaas baahan waa inuu ku wareejiyo. haddii miskiin uu doonayo in yaryar uu siiyana oo sanadka lagu masruufo ama u yaryareeyana waa inuu cid kale wakiil uga dhigo oo zakadu gacantiisa dhaafto, laakiin adiga gacanta kuma hayn kartid. masaakiintii oo baahan adiga gacantaada zakadu kuma jiri karto, asal ahaan waa inay ka baxdo gacantaada oo ka wareegto, ama wakiilka miskiinka waa inay ku wareegto, ama miskiinka laftiisa waa inay ku wareegto. wallahu aclam. saa'ilkani wuxuu leeyahay sheekh waxaan ku nadray inaan 5 maalmood soomo waana awoodi waayey, maxaa kafaara la iga rabaa? nadarka horta si ahaantiisaba in la galo ma fiicna. nadarku nabigu siduu tilmaamay sal alla alay wasalam ma sheegay, nadarku qadarka ilaahay waxba kama bedelo. waxaan ilaahay qorinna kuuma soo jiido kuuma keeno, waxa ilaahay qorayna ma baajiyo. saas daraaddeed buu nabigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam inamaa yustakhraju bihi min albakhiil. ruux bakhayl oo ilaahay daacadiisa ku bakhaylay unbuu nadarku wax ka soo saaraa.
soon ay ahayd inaad ilaahay dartii u soonto ood ku baqayshay ayuu nadarku ka soo saaraa sadaqa ay ahayd inaad sideeda u bixiso ilaahay ugu dhawaato ayuu nadarku ka soo saaraa laakiin wax kale ma keeno saas daraadeed buu nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri nadarka iska daaya nahyi baa ku soo arooray haddii se ruuxu uu galo adaa marka qoorta la galay waa inaad oofiso adaa isku kallifay waxaan ilaahay kugu kallifay saas daraadeed waa inaad oofiso yuufuuna binnadri wa yakhaafuna yawma mu'miniintu ilaahay ku tilmaamay nadarka inay oofiyaan gaar ahaan hadduu nadarku yahay nadru taaca cibaada ilaahay loogu dhawaanaya hadduu yahay waa inaad oofiso waa haddaad kari weydo karid la-aantu waa laba nooc inaad kari karto laakiin waxoogaa aad ka wahsanayso iyo inaadan sideedaba awood u lahayn haddii wahsi iyo ay tahay waa laazim inaad wixii aad ku nadartay la timaado haddayse tahay karid la-aan rasmi oo awood aad u weydo marka nadarkii wuxuu isu bedelayaa dhaarta yani kafaaradeeda loo bedelayaa yani kafaaratul yamiin ayuu xukunku marka isu bedelayaa kafaaratul yamiin maxay tahay inaad 10 miskiin quudiso soonkii waad kari weyday soo maaha 10 miskiin quudi oo mid walba hal mir wax ku filan si ama arad bixiyo mid walba hal mar wax awradiisa asturo dhar ah u qaybi 10 miskiin kafaaradaasi waa kafaarada dhaarta haddii uu waayo ruuxu oo wuxuu siiyo waayo marka 3 bari buu soomayaa soonkana waa kii su'aashu waxay ahayd yani nadarkii soom buu ahaawuna kari waayo nadarka kafaarada dhaartana ma kari karo ficlan saas daraadeed wuxuu ku bedelayaa inuu 10 miskiin quudiyo wallahu a'lam shaqana saa'ilku wuxuu leeyahay dahab ama dollar ayaan qof kale ka iibsanaynay qiimihii markaan ku heshiinay ayuu iga qaatay dahabkii isla markii ima siinin lacagtii aan ku heshiinay wuu ima weeliyay 3 maalmood kadib ayuu i siiyay lacagtii arrinkaasi ma riba haddayse riba tahay anigu miyaan ku dambaabayaa isaga ayaa iga baxay ballantii lacagtii igala tahay dahabka waatan hadda tilmaamaynay marka la gadayo laga ganacsanayo sharti weeye in waxa lagu kala gadanayo labada ruux ee dahab kala gadanaya kan lacagta watana inuu lacagta meesha ku dhiibo oo dhameystiran waxba ka dhimanayn kanna dahabkiisii oo dhameystiran in la siiyo oo waxba ka dhimanayn haddii dahabka lacagtiisa qaar la bixiyo oo inta kalaan soo dhammaystirayay easy hay la dhaho waa ribo haddii dahabkii wax ka dhiman yahay oo inta la heshiiyo lacagtii oo dhammaystiran la bixiyo dahabkiina wax ka dhiman yahayna iyadana waa ribo haddaan la kala qaadanin waa ribo waa inay tahay oo dahabkii oo dhammaystiran ah iyo isii oo lacagtii oo dhammaystiran ah halkaa hadday wax khilaafaan waa ribo markaas ribaduna isaga iga dib dhacay iyo asaga muxuu iga daahay iyo ma gasho laana marka hore baad wada joogteen hadaad ogolaatay inuu lacagta dib kaaga keeno ribo markaas aad gasheen dahabka iyo lacagaha sarifkooda waa meelaha ugu badan ee ay ribadu gasho dadka ka ganacsada waa inay aqoonteeda leeyihiin fiqigeedii aqoonteeda waa inay leeyihiin ribo ugu dhacay xilliga Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ardaa ayaa dadka suuqa ka ganacsada ayuu u dhigi jiray ruuxa ganacsiga uu ka ganacsanayo hal lagu imtixaano ahkaamtiisa ruuxii marka ganacsiga uu ka ganacsanayo ahkaamtiisa asaasiga garan waaye suuqu ka eri jiray oo wuxuu dhigi jiray muslimiintu riba iyo xaraan xunsiinay marka baabka aad ka ganacsanayso fiqigiisa iyo aqoontiisa asaasiyaadka inaad barato waa laga maarmaan gaar ahaan dahabka iyo fidada oo macdanta labaad ah fidada waa muxuu silverka ama muxuu ahay qalinka aan dhahno waa labada ribadu gasho iyo lacagaha sarifkooda oo bedelay yani meeshii ay dahabka iyo fidadu ku jireen waagii hore wallahu a'lam shaqana saa'ilku wuxuu leeyahay qof ayaa alaab ii dhiibay soo iibi ayuu yiri $100 ku soo iibi 10 adiga qaado 90 aniga ii keen kadib anigu waxaan gaday $120 90kiisii ayaan siiyay miyay xalaal ii tahay 10 baad leedahay boqolka kale u xeelay ninkiis kale
laanna wuu kuu xadiday waxaad meesha ka qaadanayso badaacadani waxay gasho ninkii badaacada iska lahaa baa leh adigana wuxuu ku yidhi 10 ka qaado soo ma hadduu sabab filahayay inay 100 galayso oo ay 110 gashay 10 ka kordhay badaacada iska leh ninkii badaacada lahaa baa leh adu mali adiga waxaad leedahay 10 ka uu ku ogolaaday bas baad ku leedahay ama hadduu ku dhihi lahaa badaacadan soo iibi inta ii soo sii wixii siyaade ee kordhay ee inta ka badan adaa iska leh 20 ka marka adaa yeelan lahaa laana waxa weeye wax ku muusan xadidine intuu xaditay wixii ka badan buu ku yiri marka haday 20 noqoto haday 10 noqoto ba adaa yeelan lahaa laakiin hadduu ku yiri 10 saaro wixii badaacada siyaada ka noqda badaacada iska leh badaacadana ninba iska leh isaga u celinaysa marka wallahu a'lam sheekhana saa'ilkan wuxuu leeyahay gabadh inay iska soo rido hal ilmo hal bil jira maxay ka qabtaa diintu dhakhtarka daawada u qoray ma isku xukunba ilmuhu inta uusan guntamin oo uu xinjir yahay bisha hore ila soo ridaayay markastoo uu dib u sii dhaco bisha labaad galo bisha saddexaad galo markuu samaysmo marka nafta la geliyo marka ka dambaysaay dambigiisu waa ka sii culus yahay marka hore oo halka bil yahay oo xinjir uu yahay ama uu intay isla falgaleen biyihii iyo muxuu ahay manidii ninka iyo kuntii hooyadu isla falgaleen marba haday isla falgalaan in la soo ridaayo waa xaraan sida saxiixa ah hadii markaasi aan xaaje iyo duruuf sharci oo keentay ayna jirin waase marka hore marxalada hore waa mas'ala khilaafiya bisha hore waa mas'ala khilaafiya culimada qaar kood waa banaan tahay dhahay laakiin sida saxiixa waa xaraan maxay yeelay intuusan uur gelinba in ilmaha uur galkiisa la dagaalamo shariicadu diiday oo nabigu wuxuu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam islaanta in laga ilaaliyo inay uuraysato iyo rasuulku wuxuu ku tilmaamay dalika alwa'dul khafi wa habal nololin qarsoon buu nabigu sallallahu alayhi wasallam caruurta gabdhaha iyagoo nool bay aasi jireen marka waa xabaash waa ilmihii oo nool oo la aasayo la yara farsameeyay wayaan nabigu sallallahu alayhi wasallam la farsameeyay haday xaaje keento waa la ogoliyay haday xaaje iyo duruuf marka keento waa la ogoliyay وحديث جابر باكوتوسيه كنا نعزل والقرآن ينزل يعني مركي أي نرب الإسلام تقول أوريسته يا واحد سمين شيء مركي أقل مودان بيه إنك كسر لويهين أيو أنتو حبنك كسره وبيها بنان كدارين شيء سين أوريسنين علماء مركي وحيلين هذيك الظروف مركي كينيس هي حاجة شرعية ولا أقوليه هدي أين وحاجة كينين إن أورك لا تقال ما خلط هدي تال الديني علمه أور قال إلا سور رداي وكحل جرتا مرك وخلط وأنا الدم وهاي والله أعلم. شيخنا سائلكم حوريا هو محي عذاب القبر حديث صحيحة أما آيات ما الله يعني ما دام أي حسابت قبرك كدب حي ومحي عذاب القبر إيو جنة قبري عذاب القبر وحو يروح مركو قبرك قبره أي قبرك وحوون نقونيا إما روضة من رياض الجنة أما وحوون نقونيا برواقو شناع أما وحوون نقونيا قد ناريت بوكو نقونيا دريشت باللوغة فريا جنة ميشو كلها بدال عنيا أدو أهل النار يهينا نار دريشت لوغة فريا نار تي بدال عنيا ميشو كلها هادو الروح يهي قبرك الروح جيريا مكدبان الجليلية هادو الروح وانا يسيا هنا قبرك الله واسعنا وانا الله افتيمنا مركا قبرك عذاب بوليه وكان النبي قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر إلى وحان مغان كاغا هي قبرك عذاب كيس فتنة قبركنا وامتحان كقبرك الروح وكمريو ومركو الروح قبرك قالوا وددكي أي آسان ولوه بصدو مركاسا وحاو إيمانا يلما ملك مركاسا امتحانيا من ربك ما دينك
su'aalaha afarta ku soo aroortay baa la weydiinaya marka taa waxa weeye waa imtixaanka qabriga fitnatul qabri waa cadaabul qabrina waa cuquubada la marinayo ruuxa xun qabriga lagu marinayo naciimul qabrina waa barwaaqada dhex taala qabriga ee dadka wanaagsan ay helayaan intabana waxa ku tusay quraanka kariimka iyo xadiista nabiga sallallahu alayhi wasallam waana mutawaatir axaadiista ku soo aroortay waana ijmaaci salafka culimadii hore iskumayna khilaafin masalada ayada wallahu a'lam shaqana saarkan wuxuu leeyahay inta badan waxaan maqlaa ninka jannada gala wuxuu leeyahay 7 xurul ayna hadaba waa maxay abaalka gabdhaha mise xurul aynta waxay isku jirtaa rag iyo dumar waa maxay xurul aynta ma yani si kooban waxaad tiraahdaa xurul ayn oo rag amiyaa jira ma xurul ayn rag ma jiraan laguma sheegin jannada laakiin dumarka adduunyada markay geeriyoodaan inay jannada rag ku leeyihiin baa qur-aankii sunnadu sheegeen marka laakiin rag xurul ayn la yidhaahdo jannada lagu abuuray qur-aankii sunnadu ma sheegin kaliya waxay sheegeen dumar xurul ayn ah oo jannada lagu abuuray kuwan adduunyada jooga laftooda markay jannada galaan sidan si ka duwan baa lagu soo celin doonaa la abuuri doonaa oo iyaga laftooda ama xurul ayn bay noqon doonaan ama waa ka quruxsanaan doonaan laakiin qur-aankii sunnadu waxay noo sheegeen haweeney jannada galaysa ma jirto ilaa nin bay leedahay marka raggan adduunka jooga unbaa dumarka loo qaybin doonaa dumarkan adduunyada unbaa loo qaybin doonaa marka aakharana meel la isku masayra maaha hadday dumarku ka masayraan raggan dumarka badan loo guurinayo aakharo meel la isku masayra maaha meel wax la saluugana ma aha meel wixii ilaahay ku siiyey la saluugo ma aha ninkaasi keligii ah oo 100 naagood la siiyey 100 dumarkaaba waa ku filaya waana isku faraxsan yihiin kama inda taagayaan qaasiraatu tarfi buu ilaahay ku tilmaamay qaasiraatu tarfi marka hawlahan iyo masayrkan iyo ficiltankan adduunka yaalay janno ma yaal nihayadu wax weeye khulaasadu quraanku wuxuu tilmaamay dumar jannada lagu abuuray laakiin rag la yiraahdo xurul ayn oo jannada ku abuurani quraan iyo sunnadu ma sheegin wallahu a'lam sheekhana saarkan wuxuu leeyahay waxaan ahay dhakhtar barta cilmiga qaliinka waxaan practical ku qaadanaa dad dhintay oo meyd ah oo xubnahooda mindi ku jarjarnaa annagoo u baranayna sidii dadka nool aan u badbaadin lahayn wuxuu yahay war lagama hayo xukunkiisu waa sidee asalka ruuxa meydka ah ee muslimka ah ixtiraam buu leeyahay marka uu nool yahay xurmada uu leeyahay ayuu markuu dhintana leeyahay marka dadka muslimiinta amwaadooda waa in la ilaaliyo haddii la aasana qubuurtooda waa in la ilaaliyo oo qabriga ruuxa muslimka laguma istaagi karo laguma fadhiisan karo lama dulmari karo laguma xaajoon karo waa in la xifdiyo la ilaaliyo lama milkin karo qubuurta muslimiinta waa waqaf iyaga iskale dadka ku jira iskale marka jirkooda laguma xadgudbi karo allahumma hadday timaado daruura hadday timaado aan meel laga mara lahayn wax lagaga kaaftoomana aan la haynin oo marka looga maarmi waayo jirka meydka in markaasi la googooyo ama la qalo markaasi wax way daruura ahaan way banaanaane oo culimadu midaalo fara badan bay culimadii hore bixiyeen oo ruuxa jirkiisa loo qali karo tan hadda in lagu barbarto cilmiga caafimaadkana waa arrin cusub oo hadda muxuu ahay ku cusub culimaduna waa ka hadleen waxay leeyihiin hadday daruuro noqoto bini aadamka la qalayo ee loo baranayo in la badbaadiyo xayawaanaad waxaa jira bini aadamka ay shabahaan haddii looga kaaftoomi karo xayawaanaadka in lagu barbarto bini aadamka qalitaankiisana looga kaaftoomi karo waa in lagu kaaftoomo xayawaanka ku barbarashadiisa oo aadamaha aan jirkiisa la googoynin haddii la waayo oy laazim noqoto markaasi waa daruuro way banaanaan
والضرورة تقدر بقدرها قياس تاي ضرورة تاي وين المركة للدافين انت باهد تاي وين لغو كابصدو كدبنا جيرك الله أسطره والله أعلم. شيخنا سألكم وحولي قفك مسلم كا هدنا اللبيب كا مسلمين تا أيولتو كان يا مرقا مسادومك سيس اللوغو ديا قفك اللبيب كا مسلمين تا أيولتو كان يا مرقا مسادومك سيس اللوغو ديا قفك اللبيب كا وصدح لبيب حق الرجل نمدو وحوك بدنتهي oo hormoonaadka ragga ku xoog badan calaamadihii ragga ka muuqanaya iyo labeeb xagga dumarka u xoog badan oo hormoonaadkii dumarka iyo calaamaadkoodii baa dhankooda u badanaya iyo labeeb mushkil ah labeeb mushkilka waa labeebka aan xaggana u badanin xaggana u badanin kaas aan dhinacna u badanin raggu la mid noqonaya labada midba dhinac u batayna mid walba dhanku u batay buu raacaya ka xagga dumarka u bato calaamaadkii dumarku ka soo baxeen dumarka la raacinaya غالبا waxay leeyihiin culimadu ma badna ruuxa labeebka ee labadii xubnoodba ku yaalaan inay labada xubnoodba wada shaqeeyaan ma badna mid baa inta badan shaqo gala ka kalena meeshu isaga yaala ka marka waxa weeye shaqo galay ee shaqeynaya kaasuu ruuxu raacaya oo dhanka uu u badan yahay marxubinka dumarka shaqeynaya ka raggu isaga yaala oo meesha marna ka ragga shaqo galaya ka dumarku meesha uu isaga yaala kolba dhanku u badan yahay buu marka xukunkeeda qaadanaya rag iyo dumar midka uu yahay wallahu a'lam. sheekhna sa'ilkan wuxuu leeyahay sheekh haddii waalidku nagu xumaado shirki weynna ku aragno haddaan ka tagno maxaa nagu iman kara haddii waalidku nagu xumaado oon ku aragno shirki haddaan ka tagno maxaa nagu iman kara waalidku hadduu xumaado Allah wuxuu yiri tabaaraka wa ta'ala si wanaagsan ula dhaqma laakiin xumaantiisa ha ka qaadanin wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi dunya ma'rufa waalidki waa gaal ilmihiisina gaalnigu kula dadaalaya inuu ku gaalaysiyo rabaa Allah wuxuu yiri tabaaraka wa ta'ala gaalnimada uu kuugu yeerayo ha ka qaadanin kudi laakiin hatuurine وصاحبهما في الدنيا معروفا الدون كدحديس سوى ناكسن كل صاحبه حنانه ووالدك هجاج وباري النقو به عن شريعة خلاف سنة ولا بدي والد وقاله أما متكوض وقاله المهين كل دار إنه قال يسيو قول له مدين والدك قال كي هذا قال لماذا كل الربا قو إلهي مدين تبارك وتعالى وحيد قال لمدي سنة دي الدون كان سوى ناكسن الله صاحبه حقوق دي والد نمو وليه هاي إلالي وألي تبارك وتعالى والله أعلم. شيخنا سألكم وحوليه بير أيان طبعي طبعا كن أيا إيجاش قرش طبعا كي بس هذا يكسر بحذا الزكاة الأولية بيرتا مركل الله تبعه لما بدواي إن بيها راب كلو تبعه إن بيا كلته أو لسور دامية لو تبعه iyo in biyo dhulka ka soo baxayo xididkeeda ay ku cabayso mid walba ahkaam khaas ay leedahay oo muxuu ahay ay shariicadu tafsiilisay faafahisay isku mana xidna kharashka beerta galaya iyo waxa ka soo go'aya haduu gaaro nisaabkii ay zakada shariicadu ku waajibisay waa inaad zakada bixiso oo cushur ah boqolkiiba muxuu ahay 10kiiba hal ayaa laga bixinaya haday 10 jawaan ka soo baxay hal jawaan baa la bixinaya shay kasta oo la abuurayna kharash waa galaya oo beeri la beeri jiray ba kharash waa gali jiray laakiin lama fiirinayo kharashka galay waxa la fiirinaya waxa ka soo go'ay ma gaaraya qadarkii zakadu ku waajibaysay bisamaya haduu gaarayo waa inaad ka zakayso naam. sheekhna sa'ilkan wuxuu leeyahay fadiilatu sheekh Soomaalidu dhaqan ahaan gabadha waxay u guuriyaan nin xagga dhimirka laga hayo iyadoo la doonayo in ubad laga reebo meherkaas ma saxba diintu seen maxay ka qabtaan gabadha guurinteeda
hadduu ninka guursanaya uu ku rabo sidaa waa la guurin karaa. dadka dhimirka ah gabadha haddii rabto sax waay, hadayna gabadhu rabinna lama qasbi karo. labaduba cagsi waay. yani ruuxa dhimirkiisu wax ku jiraan hadduu nin yahayna oo haweenay raalli ku ah inay guursato la helana waa loo guurin karaa. oo waxaa u guurinaya isaga cidda mas-uulka ka ah ayaa guurka u guurinaya. isagu guur ma aqbalo, waxna ma furo. waa sida xarunta yararka oo kale, ilmaha isagoo yar baa loo guurin karaa, laakiin weligiisa wakiilka ka ah baa guurka u aqbalaya, mas-uuliyaddana qaadaya, isaguna wuu ka ilmo dhali. cagsiga waxa weeye hadday gabadhu sidoo kaleeto dhimirkeedu dhiman yahay, nin sidaa ku qabaya haddii la helo waa loo guurin karaa. waa loo guurin karaa. weligeeda isaga iyada wakiilka ah, ninka guursanayana isaga muxuu ahay guurka aqbalaya. labaduba maskaxdoodu dhiman tahayna waa laysu guurin karaa. oo dadka waxoogaa ama yaro waalwaalan ama nacasyada ee maskaxdoodu dhammaystirnayn labaa laysu guurin karaa. ilmo fariid ay dhali karaa, wayna dhacdaaba. marka wax mushkila ma leh. keliya waxa laga maarmaan ah labada laysu guurinayo midkood hadduu wax garanayo inaan la qasbin. gabadha la guurinayo guurka laguma qasbi karo, ninayna rabinna laguma qasbi karo. ninkaasi ama ha fayoobaado ama ha jiranaado. mid fayow oo lixdiisa laxaad qaba oo dhaqaale haysta oo hanti haysta oo ladan oo sheekha bay diidi kartaa. hadday diidana laguma qasbi karo. masalada Soomaalidu inay fahanto waa gabadha ma qasbi kartaan. gabadha haddaad qasabto oo guurka diido waxba kama jiro guurkaaga. laana wax weeyaan nabigeena sallallahu alayhi wasallam bay u timid gabadh, waxay tiri rasuulka Ilaahay aabahay baa ii guuriyay, nin aan raalli ka ahayn buu ii guuriyay. nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam arrinkaagu gacantaadu ku jiraa, adiga arrinkaaga leh, ama aabaha warkiisa yeel ama diid, xaq baad u leedahay buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam. sidaas daraadeed gabdhaha lama qasbi karo. ama haddii la israbo oo raalli la isku yahay dhib ma leh. nacam. sheekhana saa'ilkan wuxuu leeyahay kaadida igama dhammaato xitaa haddaan waqti dheer fadhiyo, marka aan sujuudo ama aan foorarsado waxaa iga yimaada dhibic. haddii aan dhibicdaas ku tukado salaadu ansax miyaa? haddaysan ansax ahayn maxaan ku xalliya? laba mid waaye. in kaadidu kaa socoto mar walba oo daa'imul xadath baa la dhahaa, salasul bawl baa la yidhaahdaa. mar walba waxaa ka socda ama neeftaa iska socota ama kaadidaa iska socota. ama haweeneyda ama dumarka dhiig furanka leh mar walba xubinka taranka dhiigu ka socdo. kuwaas waxa weeye daa'imul xadath baa la dhahaa. xadadkoo iska socdo ruuxu tukanaya, laakiin salaad walba wuu u weysaysanaya ruux. salaada waad u weysaysan asagoo wixii iska socdaa tukani, laana intaasaa tabartaada. laa yukallifu allahu nafsan ilaa wuscaha. addoonka inta tabartiisa ilaahay kallifaa. haddiise laakiin wuxuu yahay wax go-aya oo muxuu ahay marna imaanaya marna go-aya, waxaad ku dadaalaysaa marka aad xaajadaada dhammaysanayso inay noqoto xilli salaada waqti ka horeeya, si adiga oo daahira markaa salaada aad u tukato. waxaad kaleeto mudan inaad ku baraarugtaan, ayna u badan tahay tan oo kale inay tahay marar fara badan ruuxii isagoon waxba ka soo bixin ayuu shaytaanku wuxuu ku leeyahay waxbaa kaa soo baxay. weliba fiqiga shaaficiga baabkan dahaarada wuxuu ka mid yahay madaahibta madhabka ugu adag buu ka mid yahay. Soomaaligu marka si uu leeyahay isdaahiri oo kaadida xubinka ka soo saar oo u jijiiday oo u rafaadsan buu cudur ku dhici. marka waxa weeye haddii kaadida intaad kaadido ay kaa dhammaato oo aad xubinka ogaato inay wixii ka baxeen, ayad istijayso iska soo kac. maanta inaad meesha gacanta kula jirto oo moodo waxbaan iska daahirinaya, waa irida waswaasku inaga soo gala waay. dhibkeedayna leedahay, ilaahayna inaguma kallifin. haddii waswaaska noocaas oo kale kugu dhaco waxay u baahan tahay inaad iska daaweyso. marka dad waxaad arkaysaa wuxuu ku leeyahay markaan salaada imaanayo unbay wax qoyaan iyo waxbaan dareemaya.
marka kale meelaha joogana wax qoyaan ma dareemahay oo qoyaanka salaada kaliya aad dareemayso muxuu yahay waa wuxuu sheeko shaydaan waay oo waswaas shaydaan waay saas daraadeed baa nabigeenu wuxuu sallallahu alayhi wasallam inoo jideeyay si aad waswaaska u goyso markaad kaadido ood istijaysato maradaada meesha xubinka ku beegan biyo ku sayr qoob si markuu shaydaanku ku yiraahdo war waxba soo baxay aad nafta ugu qanciso mee waxba igama soo bixine waa biyihii aan anigu ku qooyo ku sayray waswaaska si aad isaga xidho wayla hadduu waswaaskaasi kula fogaado marka dambe wax diin la'aan buu ku dhigi ila waswaasku caqiidadana waa galaa dahaaradu galaa salaadu galaa meelo badan buu dadka galaa Soomaalida dadka qaarkood aan dhaafi karinba at-tahiyyatu maanta nabule at-tahiyyatu ma dhaafi karo mid baa wuxuu dhaafi karin usalli maanta nagu hay usalli nafta hays ma dhaafi karo mid baa wuxuu dhaafi karin alxamdulillah ma dhaafi karo alxamdulillah rabbil alamin ma gaari karo maxaa ku haysta marka waa waswaas nabigeenu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam waswaaska noocaas oo kala ah warkiisa har rumaysanin intaad waxaasi rumaysato waxba jire sax haysteen asagoo kule waxba ka khaldan ka soco asagoo kule waxba ka khaldan ka soco asagoo waxba ka soo baxay yeelka ku dheh salaadii kuma xidmin yeelkadeeda dheh ka soco asagoo kule neef ba ka timid hatimaada ku dheh ka soco haddaad si tiraahdo waxba khaldan sax haddaad istiraad shabakadii dabinku reebay baad ugu dhacday kadibna uu ku sii wadi uu kula sii durki arigaasi marka waxba iga soo baxbaxay qoyaan baa jiray iyo waxay u badan tahay inuu waswaas yahay waswaaskaasna in la dagaalanto u baahay naam sheekhana saarku wuxuu leeyahay fadiilatu sheekh dumar dhalmo ka baxay oo guruub ah xajka bilaa mahram ma tagi karaan xajka waa mas'ala khilaafiya waay xadiista nabiga waxaa ku sugan haweenaydu yeeshan safrin mahram la'aan safarkaasi xajkuna waa galayaa safarada caadiguna way galayaan oo waxa ku tusaya inuu xajku galayo nabigeenu markuu xadiidka sheegay sallallahu alayhi wasallam ninba wuxuu yiri rasuulka ilaahay oo xaaskaygii xaj bay aadaysaa anigana ciidan baan ku qornahay baxaya nabigu wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam ciidanka ka joogo xaaskaaga raac culimada qaar baa waxay yiraahdaan laakiin ahadiistaasi waxay ka hadlayso waa la garanayaa waa mafhuumul macna macnaheedu iyo maqsuudka la garanayaayo haddii haweenaydu ay xifdisanto ilaa 5 tahay xajkuna waajib yahay dad aaminana ay raacdo la soo noqonayso maqsuudkii marka waa la helay maqsuudka nabiguna taas uu ahaa sallallahu alayhi wasallam macnahaas oo la fiiriyo culimada qaar baa qaba imaam Shaafici iyo aymale oo markaasi haday dad wanaagsan oo la soo noqoto raacdo heli karto culimada qaar baa qaba Sheikh Ibn Taymiyyah iyo culimo badan baa rajaxay madhabka isaga wallahu a'lam sheekhana saarku wuxuu leeyahay waxa jirta gabar xaaskayga ah oo muddo 3 sano ah soonkii waajibka ah aan soomin sababtoo ah mar ilmaha ayay uurka ku sidaa marna way nuujisaan marka sheekh soonkeedii maxaa laga yeelayaa dumarku markay uur leeyihiin iyo markay nuujinayaanba way afurayaan hayla xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam ba sida sheegay hadday afuraan oo soonku ay sida ku afuraan markay fursad helaan ee ugu horeysay qalaynayaan haddii soomanku isku gaargaaraan oo isku nuug ay marna nuujinayso marna uur leedahayna markay fursad hesho ayay qalaynaysaa soomankaas oo dhan haddii ay dhacdo inay soomanku bataan oo kari weydana markaas raashin bixinaysaa sida saxaabada qaarkood iyo aymada qaarkood ay ku tageen wallahu a'lam sheekhana saarku wuxuu leeyahay dadka inta badan markay jamaaca ku xiranayaan waxay sugaan inta uu ka soo istaagayo imaamku ama ka fariisanayo wax nas ah baa ku soo arooray arrinkaas waa qalad waayo imaamka markaad salaada timaado imaamku meel alla uu marayo ku xidho raacna nabigeena sallallahu alayhi wasallam xadiid baa sida uu ku leeyahay imaamka hadii uu fadhiga ku jiro fadhiga la gal hadii uu يعني وحويان التحيات كلك كلية توحد حساب سني هذا ركوع ذا كجادو ركوع هذا سيفي عن ركوع جادو ركعت ذا سوي كوع حساب سنته ركوع ذا وحي كتم به هذا كوع جادو وسوى كسر توصي أما السجود هذا يوحي كتم به ركعت ذا سوي كوع حساب سنة
laakiin meel alla meeshuu imaamku marayo waa inaad ku xidhato salaada aadna salaada raacdo waay inaad sugto inuu soo istaago waa qalad intuu soo istaagay inaad sugto iska taagnaato waa khalad laana khayr baa ku dhaafaya salaada markaad xidhato maalan imaamkii oo soo toosay baad ku xidhato waad la sujuuday labada sujuud baad la sujuuday labada sujuudood iyo intuu soo kacayo salaadaadii kamid maaha salaadii kuma xisaabsana laakiin ajir ahaan way xisaabsan tahay waad la fadhiisatay fadhigaad la fadhiisatay salaada gashay way ku xisaabsan tahay ajir ahaan salaada ragcadeedii baan la xisaabinayn laakiin ajir ahaan way ku xisaabsan tahay marka meeshii imaamka aad ku soo gaadho salaada ku xidho wallahu a'lam sheekhana saarkan wuxuu leeyahay dawamadoobaysada ayaan sida xinnaha u marsadaa cidiyaha iyo gacmaha oo dhan maxay ka qabtaa diintu haddii ay tahay cidiyaha iyo gacmaha waxa la marinayo hadday tahay shay qara leh ama jurmi leh oo jirka korkiisa fuulaya hadduu yahay marka wuxuu diidayaa dahaaradii la rabay inay jirka gaadho qabayskii waajibka ahaa iyo weysadii la rabay inay jirka gaadho ayuu diidayaa shaygan dul saaran jirka ama cidida dul saaran ama jirka dul saaran hadduu yahay shay aan jirka dul saarnayn oo midab jirka gudihiisa ka muuqda sida cilaanka oo kale hadduu yahayna markaa dhib ma laha taa waa haddii jirka loo isticmaalayo haddii loo isticmaalayo timaha loo isticmaalayo iyadu way ka duwan tahay oo timaha madoobaysada loo isticmaalayo waa masale khilaafiya waaye culimada dhexdooda hal xaalo way isku waafaqsan yihiin inuu xaaraam yahay laakiin xaaladda wixii ka soo hadhay waa masale khilaafiya culimada qaar waxay waa bannaan yahay qaar waxay leeyihiin waa xaaraan qaar waxay leeyihiin waa karaaho in timaha xiroobay madoobaysa la mariyo laakiin waxaan khilaaf ku jirin oo ka fiican midabkan brownka la yidhaah brownka ama bunniga aan dhahno bunniga waa madow iyo guduud isku jira oo markuu ruuxu kaa fogyahay waxaad moodaysaa timihiisu inay madow yihiin laakiin markaad ku soo dhawaato casuus baa ku jira kaasaan la isla diidanayn inuu bannaan yahay laakiin madowga dikhda ah ee timaha sidii ilaahay u abuuray ka dhigaya kaa way midka khilaafku ku jira culimada dhexdooda wallahu aclam waqtigii waa gabagabaha marka intaasaan ku joojinaynaa sheekhana baaraka allahu fiikum wa athaabakum wa axsana ilaykum baarak allahu fiikum jazakum allah khayr